Faadumo waa gabadheeda yarta curada walaal horta gabadhu marka hore xanuunka marka hore kumaana ogeyn subaxyada kamid ah ayadoo gurigeeda joogta baa waxay tiri hooyo caloosha laga hayaa annaguna maanan fahansaneen xanuunkan inuu jiro kadib dhakhtar baa la geeyey degmada Galdow bay ku noolayd dhakhtar bay dhawa la yiraahdaa loo geeyey kadib asaga caloosheeda gabadha fiiriyey wuxuuna yiri gabadhan buraan kaga shaksanahay inay ku jirto kadib waxa sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu yiri loo soo saaro CT scan-kii markii la soo saaray dhakhtarka lagu celiyey kadib dhakhtarkii jawaabtiisa waxay noqotay inuu yiraahdo gabadhan xanuunka kansar jira oo waliba aad u weyn gabadhii waxay bilowday kaar saa'ida oo aanan habeenkii in irbad la siiyo ma aysan kaarku uusan jabin marka Cabdiqaadir goormay ahayd markaas sanadkan 2021 bishii February bay ahayd bilowgeedii saan jeclahay noocan kansarka ah ee gabadha laga helay ee dhif iyo naadirka ah Soomaaliya wax ma looga qaban karay talaabo noocee ah ayaad saqaadeen dhakhtarkii ugu horeeyay Dr. Baydhaba wuxuu yiraahday wadanka waxa looga qaban karaa sida ugu dhaqsiyaha badan waa inay gabadhan operation ku heshaa oo la qalaabay uu yiri marka dhakhtarku ugu horeeyay saan ugu la taliyay kadib waa qaadnay waxaan geynay xamar dalka Turkiga geynay double check baan ku sameynay si labada dhakhtar ay isku waafaqaan kadib dhakhtarkii Turkiga joogay yar Soomaaliya magaciisa ma xasuustaa ayaa wuxuu yiri xanuunka waa jira waa sax marka kadibna waan qaadnay waxaan geynay hospital Shafi baa gabadha lagu qalay oo hagaasi operation ugu horeeyay ku gashay waxay soo jareen kili iyo dhinac dhan oo magaraysa kilida bidixda oo ku dhacay oo area oo dhan bay soo nadiifiyeen marka saasay markii qalliinka ku gashay kadib waxa meeshii ka baxay waxay noqotay inay gabadhu kiima qaadatay ahayd adoo isfaan meeshii ka muusaymaan oo somehow adoo kiimada meesha ka baxday marka qalliinka ugu horeeyay saasay ku gashay walaal magara qalliinkii ugu horeeyay markii lagu sameeyay hal kali laga bixiyay buradii kansarkana laga saaray kadib maxaa dhacay kadib waxa dhacday adigu 2 bilood baa xamar bay joogtay 2 bilood markay dhamaatay kadib CT scan baan ku celinay waa soo qaadnay Galdow baan keenay soo taladeen waxay ahayd in 3 bilood markay joogto follow up lagu sameeyo ama CT scan la saaro marka 3 bilood ayadoo dhammaan wali oo laakiin wax yar u harsan tahay baa hal mar gabadhi waxay hadana dib u bilowday inay cunadii joojiso inay isbedel ku yimaado kadib dhakhtarkii ugu horeeyay oo degmada Galdow joogay oo Dr. Baydhabo baan ku celinay uu taabtay asaga hadana wuxuu xaqiijiyay inuu xanuunku soo noqday waqtiga markay ka soo bilaabatay gabadha xaaladeedii way soo cuslaatay calooshii waa soo weynaatay barar aad u weyn bay keentay xanuunka kaarkuna wuxuu noqday wax qofkii la joogay kaliya uu dareemi karo xanuun aad u badan baa ku bilowday gabadhii waxay noqotay dhagolafin irbad la yiraahdo in kaarjibin loo siiyo haye kadib waxaa tagteen Hyderabad maxaa kala kulanteen dhakhaatiirta gabadha markaas xaaladeeda ee aad u darneed runtii isbitaalka iyo shoda Hyderabad ku yaala runtii dhakhaatiirta iyo nursinka iyo runtii dadka staffska dhan aad bay noo caawiyeen runtii xaaladeedu aad bay u liidatay oo xanuunku aad buu caloosheedu saad inay qarxaday ku dhaweyd adigu 6 bari markay ku jirtay isbitaalka waa laga soo saaray runtii waa dareemi karaa dadaalka inta la eeg ay ku bixiyeen dadaal aad u badan bay ku bixiyeen alxamdulillah kadib ayadoo stiil calooshu barasan tahay laakiin kaarkii joogsamay cunadii inay cuntay bilowday runtii halkaas xaaladeedu isbedel uu ka yimid magarat adiga waxaa tahay gabadh aabaheed markii ugu horeysay ee aad ogaatay inay kansarkaas qabto sideed u aragtay waa dareemi kartaa aabe la yiraahdo gabadhaadii xanuunkaasaa lagu sheegay runtii walwalka iyo walbaarka uu dareemi karo waqtiga aniga la sheegay imtixaan baan u fadhiyay waxaan xasuustaa inaan imtixaankii 3 jeer oo kamid ah aan ku dhacay